Sidaa hore u wada ogeedeenba waxaa labadii maalin ee ugu dambeeyay baraha bulshada aada isugu haystay Sharmaarka iyo Huda Amuun ayagoo markaasi Huda Amuun ay markaasi soo dhagahadlayso balse Sharmaarke uunan si cad u soo hadlin balse xalay ayaa waxaa dhacday in ay Huda Amuun Sharmaarka soo qarxiso oo ay markaasi sheegto inuu Sharmaarke caasi waalideyn uu yahay oo markaasi hooyadiis iyo caruurtiisaba uu dayacay horena Sharmaarka uu dhalay gabar xaasna uu lahaan jiray markii xaaska ay kala tageen gabadhii uu inkiray oo halkaa kaga dhaqaajiyay sida awgeedna hooyadiina oo markaasi taleefanka ka qabo waayay waxayna soo bandhigtay siro badan oo codad badan oo hooyadii ay leedahay waryaama taleefanka qabatay waryaama maxaa ka qaldan iyo waxyaabo la mid ah waxayna cadeysay inuu yahay waalid caasi Sharmaarke oo ah ninkii ay kala tageen Huda Amuun wax walba ahaataba Sharmaarka ayaa dhinaciisa ka soo hadlay isagoo cadeynayay inuunan caasi waalideyn ahayn wuxuuna Huda ugu baaqay in waxyaabaha ay wada ay joojiso ayna maseerka ka tanbadanin oo markaasi waxyaabaha hadda ay sameynayso ay saameyn ku yeelan karto ubadka dhexyaala ileen Sharmaarka iyo Huda Amuun dad ma ahan oo markaasi kali isqaba waa dad ubadka dhexyaalo oo ay wiil ay u dhashay wada ogtihiin sida awgeed wuxuu yiri marka aniga caasadaan ahay adigaba ima qabteen oo yacni adigaba kuma qabeen caruurtayduna maxaan ku raay inaan dayicin qof walba hooyadiis ayuuna live dhexdiisa ka raaligeliyay wax walba ahaata Huda Amuun dad badan oo saaxiib la ah ayaa waxa la saftay dhinaca Sharmaarka sida wada ogtiin labada qof markay isdagaasho qofna waa la saftaa sidoo kale qof kalena waa la saftaa Sharmaarka ayaana waxa uu noqday dad badani inay la saftaan waliba dadka ay isku jifada ay yihiin sida dhulbahantu ay isla wada yihiin inkastoo inaan Mrs Wall dhulbahanta ahayn balse hal Mrs Wall ayaa qabiil kala duwan ka ah hore ayaana u dhacday in qof uu taageero qof aynan isku qabiil ahayn wax walba ahaataba dhinaca kale Sharmaarka naagtii hore ee uu qabi jiray ayaa markaasi TikTok-eeda ka soo hadashay iyadoo markaasi cadeynaysa in gabadheeda aan la inkirin oo ay ka weyntay qof la inkiro wax walba ahaataba waxay TikTok ku soo qortay gabadhii ay kala tagayeen Sharmaarka Huda ka horeysay gabadhana u jeedaan ayaa markaasi aad u carootay ama u xanaaqday ayadoo markaasi sheegtay in gabadheeda la qarin karin kana weyntay qof la qariyo wax walba ahaataba Huda Amuun ayaa dad badani u tageen ayagoo markaasi ceshanaya waa ayna ka amar diido waxay tiri hadii kun ay islaanto kunna ay markaasi gaalowdo anigu ma ahi qof deynayso Sharmaarka sababta waxay tiri isaga ayaa soo daadaansaday daadaansigan waxay kala jeedaa inuu la hadlay Mrs Wall sideeba ula hadli kartaa waa sidii hadalka loo dhigay wax walba ahaataba jijiid baasan ayaa TikTok aad uga socdo waana wax aad looga yacni fiican yahay in ay markaasi dad hore isku qabi jiray iska dad caruur dhaxtaale maanta dadka caruurta markay dhaxtaalo waa hooyo iyo aabe inay kala xishoodaan ayay leeyihiin kolay gabdho badan hore u aragna waxay dhahaan anaga caruurteena aabahood saan weeye ma laga yaabo inay sacayno bababa anagu caruurteen u danaynayn balse Huda Amuun ayaa waxaa ka amar diiday ayadoo tirade aniga waxaan ku waxa ma qoro ma fahantay anyways dhanka kale Mrs Wall ayaa waxay soo fadhiisay Doni B ayadoo markaasi cadeynaysa inay ahayd gabar Bakre markii uu Doni B guursanayay ayna sheegtay in Doni B uu ahaa gurkii ugu horeeyay iyo gurkii ugu dambeeyay waxyaabaha la soo bandhigay caruurtaasna ay ahaayeen Photoshop wax walba ahaataba Doni B ayaa dhankiisa ka cadeeyay in Mrs Wall ay gabar ahayd inaan ahayn garoob markii uu guursanayayna ay gabar ahayd wax walba ahaataba social media waxyaabahaas man aqalka lagu sheegay ayaa ka socday maanta nin falaqaynaya naagtiisa waxay ahaan jirtay iyo nin wax laba qof nin hore gabar oo kala tageen is haystaan iyo gabar nin hore isku qabeen caynaysi waxyaabaha dad badan ayaana waxay sheegeen markii uu caas waalideynka ahaa ay soo bandhigaysay ayadoo qabay haday run sheegaysay maxay ula hadli weysay u dhiiwayday ilaa naagta ninkeeda ayada cashanaysay waxayna dadku soo bandhigayaan fiidiyoyo ay markaasi hore Huda Amuun iyo Sharmaarke isku jacayl isugu sheegan jireen labada qof mar walba markay isla nool yihiin ay wanaag ka dhex jacayl isku sheeganayaan markay kala tagaana kuma xirna wixii hore wax walba ahaataba waxaan ku irmo Huda Amuun ayaa ciwaano badan la sheegaya inay samaysatay iyadoo markaasi kasoo qarxinaysa Sharmaarka Cabdinaasir wax walba ahaataba waxsi waa laga qurux badeeyay waxaan leeyahay
dadkii hore isku qabay waxaasi ma fiicna, iskana daaya dee ubad baa idin dhex yaala. Sharmaarka sidii naagtii hore ay kala tageen oo kale ha noqdaana. Sidoo kale Sharmaarka ayaa waxa uu cadeeyay inuu gabar dambe oo social media ku jirto una guursan doonin, sidoo kale gabadha uu guursan doono social media wajigeeda una keeni doonin, isagoo markaasi ka shaleynaya ama yacni u yar qof ka shaleynaya oo kale guurkii Huda Amuun. wuxuuna markaasi cadeeyay in social media lagu qasbi jiray oo una weligiisba jeclayn, balse ay wax walba qoran yihiin, laakiin hadda kadib uu yiri nolosheeda waa aan ka fiirsan doonaa. haddaba Sharmaarka iyo Huda Amuun dagaalkooda wixii kusoo kordha ayaa indhaha lagu wada hayaa.